BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. maalinta berri ah oo axad ah waxaa dalka Faransiiska looga dareerayaa doorashada madaxweynaha oo markaasi ay isugu soo hareen madaxweynaha xilka haatan haya ee Emmanuel Macron iyo sidoo kale haweeneyda xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen. waxyaabaha badan ayaa dabcan laga dooday oo doodo ayaa loo qabtay, hase ahaatee waxaynu eegaynaa saameynta doorashadaasi ay ku yeelan karto xiriirka Faransiiska iyo dalalka Afrika maadaama Faransiisku uu gumaystay wadamo badan oo dalka Jamhuuriyadda Djibouti uu ka mid yahay. haddaba wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa qadka telefoonka ee magaalada Maka ee dalka Sacuudiga ku wareystay musharaxii hore ee xilka madaxtinimada Jamhuuriyadda Djibouti Jaamac Cabdiraxmaan Cadhoole, waxaana uu marka hore ka hadlayaa waxa ay doorashadani kaga duwan tahay kuwii ka horeeyay. marka aad eegto doorashada doorkan la galay waxa aad iyo aad u saameeyay waana la garanayay dagaalkii uu Ruushku ku qaaday Ukraine inay saameyn weyn ku yeelanayso ololaha, waayo madaxweynaha Faransiisku waa kii noqday gudoomiyaha ururka Yurub. marka mar walba wuxuu isku mashquuliyay isagoo ka dhigtay istaraatiijiyad ka dhigtay inuu isku mashquuliyo dagaalkan Ukraine ka dhacaya. marka aad bay uga cawdeen xitaa qoladii la tartamaysay oo waxay lahayn ummadda Faransiiska haddii uu dhici waayo dood dhex mara dadka tartamaya uma kala baxayaan, dadku waxay ku kala soo duwan yihiin. Jaamac Cabdiraxmaan, in badan waxaa laga doodaa Faransiiska arrimaha ku saabsan isdhexgalka bulshooyinka iyo diinta Islaamka iyo Muslimka. iminka haddana doorkan kuwii hore kama duwana xijaabkii haweenka Muslimkaaba aad looga hadlayaa. Marine Le Pen musharaxa xisbiga midigta fog ayaa aad uga hadasho waa mamnuucaya in meelaha lagu yimaado caamka ee dadweynaha ama publiga ah. tani saameyn intee leegba ku yeelatay kambeynkan iyo ololahan socda? Marine Le Pen waxbaynu ku naqaanaa mar walba waxay iska dhigtaa inay la dagaalamayso dadka muhaajiriinta ah iyo kuwa soo galootiga siiba kuwa muslimka ku abtirsanaya. marka dee ololaheedu mar walba wuxuu isku saameysnaa wadaniyad xag jira oo leh dad baa ina qarqiyay, dad baa la keenayaa oo diintii muslimkuna way ku soo badatay Faransiiska. marka inay tiraahdo xijaabkan bedilaya waa siyaasadda ay aaminsan tahay. marka iyadu taasi la yaab male inay tiraahdo waan bedilaya, laakiin haddana waxaynu ognahay qofku marka uu ololeynayana waa sheeko, marka uu kursiga ku fadhiistana waa dee wax kale noqonaysa. dalkan Faransiisku saameyn intee leegba doorashadan ku yeelanaysa xiriirkiisa caalamiga ah, gaar ahaan qaaradda Afrika oo wadamo badan ka gumaystay oo xiriir la leeyahay. waad ognahay in Faransiiska iyo Afrika uu xiriir weyn ka dhaxeeyay. waxaan kuu sheegayaa Cabdiraxmaanoo, Faransiisku 3 awoodood ayuu adduunyada kula xisaabtami jiray. midixii waxay ahayd tii nuclear-ka iyo tabeetooga diidmada qayaxan. ta saddexaadna waxay ahayd ku haynta dowladaha Afrikaanka gacanta ay ku hayaan oo mar walba marka meel la isku yimanayo la codaynayo ay dhinaca Faransiiska mari jireen. marka 3 awoodood ayuu awoodda Afrikaanka ayuu Faransiisku mar walba ku xisaabtami jiray. marka xiriir weyn baa jiray. dee sidaad ogtahayna Faransiisku wuxuu badgeliyay dhaqaale badan buu Afrika geliyay oo mar walba miisaaniyadda dowladda Faransiiska waxay ka qayb hayaan Afrikaanku lacag way ka qayb hayeen oo lagu taageeri jiray. inkastoo dowlado yari ay ka faa'iideysteen maalgelinta uu Faransiisku ku sameeyay, waayo dee berigii hore waxa wadanka haysan jiray qoladii la oran jiray digoliiska. halka ay marayaan xiriirka Afrikaanka iyo Faransiiska, dowlado badan baa marka ay Soomaaliya ama Burkina Faso xiriirkii uu xumaaday. inqilaabyadii baa soo noqday Afrika. nasiib darrada weyn ee maanta ku jirta Afrika, inqilaabyadii baa soo noqday. idinka ahaan Jamhuuriyadda Djibouti waxaa gumaystay Faransiiska, xiriir qoto dheerna way la leeyihiin, laakiinse Faransiiska xiriirkiinu siduu noqonayaa markaad ay soo eegto Macron iyo Le Pen? saameyn intee leeg ayaad fili kartaa dhanka doontaba ha u dhacdee? u malayn maayo in wax badan ay isbedilayaan. haddii ay Marine Le Pen soo baxdo waxa laga yaabaa inay noqoto inay tiraahdo annaga nala heshiiya oo qaraaradii hore la gaaray qaarkood ay wax ka bedisho, iyadoo dee isku dayaysa inay ka leexato siyaasaddii Macron ee dowladaha Afrikaanka lagula dhaqmayay. laakiin fili maayo in wax weyn iska bedeli doonaan. waxaan se kuu sheegayaa Cabdiraxmaanow,
labadan qof ee maanta tartamaya kii helaaba wuxuu ku qasban yahay inuu ka sugo natiijada doorashada golaha baarlamaanka ee la gelayo ayaa muhiim noqon doonta waayo waxaa laga yaabaaba in wixii la odhan jiray cohabitation ina prime ministerka iyo madaxweynuhu ay kala noqdaan xisbi iyadoo Marine Le Pen kuma haysataba baarlamaanka malaha qof baa ugu jira marka doorashada ugu weyn ee rajada ee siyaasadda Faransiiska hagi doonta waxay noqon doonaa marka baarlamaanka loo dareero. kaasi wuxuu ahaa musharaxii hore ee xilka madaxtinimada jamhuuriyadda Jabuuti Jaamac Cabdiraxmaan Cadhoole oo u warramay wariyaha